Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Victoria Safiin. Waxaan rabaa inaan caawi idiin soo gudbiyo dhaqanka wanaagsan oo laga rabo dadka islaamka ah, muslimiinta ah. Qaasaan kuwaan la hadlahayaa waa kuwa Soomaalida. Waayo walaalayaal waayahan waxaa jira dhibaato badan oo dhacday, dhaqan dumis meel kastaba, dhan kastaba dhaqankii oo kasii dumahaya, dhaqanka Soomaalida oo sii dumahaya, oo sii baaba'aya. Sababtoo ah waxaad arkaysaa hooyo guri degan oo ilmaheedii aan faraba ku haynba. Sida markay wiilku uu noqdo cunugu uu xoogaa gaaro oo 10 sano soo gaaro, hooyadu ma oga caruurtooda meelay ku dhaqaaqaan iyo meelay waxay qabtaan midna ma ay oga. Sidaas awgeed ilmaheedu waxay noqdaan kuwo ka tillaabsada. Inta badanna ilmaha odaga iyo habarta markuu ilmuhu roonaadaan oo ilmuhu xoogaa weynaadaan, adogu wuxuu ka qaadaa faraha. Soomaalida dabeecaddooda sida ah wuxuu ku haleeyaa hooyada. Hooyadana waxaa dhici kartaba inaan dababa laga dadan oo la kala jeclaynba waxay sheegayso. Walaalayaal waxaad aragtaan inta badan ciyaalku inay waxbarashadii xagga diinta islaamka ay lagula dadaalo intay yaryar yihiin oo ay bartaan oo 14 boqolka laga yaabo inay dhammeeyaan. Sida badan baa dhaqanka Soomaalidu ay jeceshahay inay cunugooda xataa iskuul inaysan geyn intii ay ka soo cunugaas 14 boqolka dhammaynaya. Si kastaba ha ahaadeen cunugu markuu wax barto oo quraanka uu barto ayaa dugsiga la geyn jiray. Hadda intii hore wuu ka duwan yahay. Cunuga asagoo dugsiga quraanka dhiganaya waxaa la geynayaa iskuulka la geynayaa. Sidaas awgeed walaalayaal waxaa jirta in ilmaha aysan marka uusan iskuulkiisii hayn karin quraanka dugsigii iyo khayrkii uu soo dhigtay ma sii hayn karo, sababtoo iskuul baa maskaxdiisu halkaasay raacday oo u badatay waxbarashadii u badatay. Isla markiisna tarbiyadii iskuulka dugsiga quraanka ah ma uusan wada dhammaysan. Si kastaba ha ahaatee ilmaha markay weynaadaan oo iskuulka ay dhiganayaan waxay la falgalaan bulshooyin kaleeto oo kala duwan, bulshooyinkooda oo kala duwan. Sidaas awgeed gurigooda waxyaalahay kula dhaqmi jireen iyo noloshii iyo habartoodii adoogeed bannaanka ayay ka istaagaan. Waxaa meesha ka baxda in waalidkii iyaga laftigooda aysan ilmahooda ka warqabin meeshay ay u socdaan iyo waxay qabanayaan. Sidaas awgeed waxaa la rabaa ilmahaagu meeshay ka baxayaan iyo waxay qabanayaan iyo waxay sameynayaan inaad ogaatid oo adiga taxaddar badan u yeelatid oo aabba ilmahaaga aad la socotid. Markay weynaadaan oo adiga cunugu soo gaaro 20 sano, gabadhu 20 sano soo gaarto ama 16, 17, 18 soo gaaro wada qaangaar noqdaan, waalidka waxaa la rabaa been ma la isku sheegayo in loo abdayo ilmahaaga. Gabadhaadu ninkay guursanayso u abdaydid oo aad shareecada islaamka sidii qabto gabadhaada siisid, aad nin siisid, wiil u qalma aad siisid, ayadana aad la tashatid, wiilkaaga sidoo kale gabar u qalanta aad siisid. Taas ayay ku badbaadi karaan maanta. Sababtoo ah wiilkii dhalinyarada markuu xoogaa soo kaco oo soo weynaado waxaaba arkaysaaba isagoo barataba gabdha aan suuqaba haddii alkuunay ka baxsanba oo bannaanka u baxsanba oo dhaqankii dhammaa ka baxsan, ama wiilal dhaqankii ka baxsan inay bartaan oo halkaas ay ka raacaan ama iskuulka ha ka barteen ama dariiqba ha ka barteen. Marka waxaa la rabaa reerka sidiisaba qoysku inuu ilmihiisa u abdayo. Haddii guur noqoto, haddii waxbarasho noqoto, inay la socdaan oo falow ay la noqdaan ilmahooda aad ula socdaan dalka iyo dibadda meeshay jiraanba. Hadday iska sii daayaan ilmihii leeyahay qaar baa waxaan arkayaa habro waaweyn ama naaga dhahaya ilmahaygu waa xor, mar hadduu qaan gaaro anigu gacan kuma dhigi kari, waa xor oo bannaanka u baxay. Sababta waxaa keenaysa hadda Soomaaliya maanta oo kale ka soo qaad ilmahooda dhaqan xumadooda waxaad ku arki kartaa madaxii baa dhinacan laga xiiraa, foodii baa laga xiiraa dhinacan, afkii bay gabdhuhu ballaarsanayaan, haddii alkuunay daawooyin xun oo jirkeeda dhammaa urinayo korkeeda dhammaa baabi'iyay ismarinayaan.
waxaas habraha iyo odayaashu way ku fiirsanayaan. Marka ayagaas laftigooda baa ilaahay kula xisaabtamaya. Odaygii dhalay iyo wiilkii dhalay gabadhaas oo bannaanka inta ilaahay u keenay ayagoo nabada oo caafimaad qaba u keenay, rabbi waa kula xisaabtamaya. Haddaysan iska bariyeelin dembiga iyo dhibaatada ay samaynayaan, rabbi waa kula xisaabtamaya. Marka qoyska waxaan ku leeyahay ilmahaaga dhaqan xumada ay samaynayaan ka jooji. Haddaad ka jooji weydid, haddii ilaahayba kuwo haddii alkuuna awlaad dhalin ayaa nool iska nool adeer dhinacan iga tag dheh. Hadduusan asagu kuu baahnayn cunuga hortaada xumaan iyo wuxuu rabo ku samaynhayo dee iska bariyeel adiga. Laakiin waa inaad cunugaaga intaad qaban kartid siisid, intaad qaban kartid waa inaad qabatid, waa inaad gabar fiican siisid, waa inaad wiil fiican siisid, waa in waxbarashadiisa aad ogatid inuu fiican yahay. Bulshada haddii dad badan meesha ay ilmo badan dhashaan waa suurtagal 1 iyo 2 inay ka fikirto. Laakiin inay majority ka wada fikadaan ilmihii oo dhan madaxa isku raacaan wiilkii weyna intuu madaxa soo xirto jeegada halkan baqtiga ku soo xirto fooda xumo tiimihi xumaa samaysto sidii alkuleystihii asagoo maartay qoon isku shabahaya min shabhu qooman mushabaha leer asagoo qoon gaala isku shabahaya ayuu madaxii dhinacyada ka xirtay. Soomaad garan gabadhiina haddii ilaahay kuu rooyahay waxay u labisanaysaa qaab aan munaasibkeeda ahayn oo dhexda suurtagal inay fanaanad xun intay xirato yaa ay dhexdaba ka bannaan tahayba gooni fanaanad intay xirato fanaanadii dhexdaba ay ka bannaan tahayba ayaa suurtagal ahba oo isku dado jilbaab laakiin ay hoos ka qaawan tahay. Walaalayaal wax badan ayaa maanta halaysan Soomaaliyay waliba haddaad joogtaan meel kasta aad joogtaan waxaan kula talinhayaa ilmihiina la socda oo u awrdaya oo haddii ilaahay kuu rooyahay diinta bara oo waxyaalahana ay ka xiranayaan ama dhaqanka xun ay ku dhaqmayaan haddii dhar ahaan noqoto haddii jir ahaan noqoto hadday qaab ahaan noqoto dee ka ilaaliya ilmihiina ka qabta. Hadday idin diidaan dee xira meel dhaqan gelin geeya iska qabta waxaan. Laakiin cunugii waxaad arkaysaa intuu soo xirto wuxuu rabo usoo xiranaya shaydaan nooc usoo xiranaya gabadhii waxaa arkaysaa labiskay rabto iyo maartay wixii iyada korkeeda qurminayo xumeynaya ama ibarka dhigay baabi'inayay gurigeeda ku marsanaysa isku habeynaysa arkaysaa. Marka gabadhu inay isqurxiso oo sharafto oo dharkeeda dhar qurxoon xirato oo haddii alkuuna cid u diidaysa male. Laakiin waxyaalaha ama salaada jirkeeda xataa ka ansaxayna markay marsato ma ahan gabadhu inay haddii alkuurahay ay marsato jirkeeda urinayo xataa jirkeeda baabi'inaya in hooyo iyo aabe raalli kaga noqdaan ma ahan. Marka waxaan soo dhaweynhayaa insha Allah kuwa wanaagsan oo ilmahooda tarbiyeysta oo ilmahooda ka adag oo dadaal badan sameeyo oo ilmahooda u awrdaya oo iskuulaadka iyo dugsiyaalka maartay kala socda waxay sameynayaan. Waxaan soo dhaweynhayaa ilmaha baariyaasha oo waalidkooda la socda oo waalidkooda aan dhibayn oo waalidkooda qalbiyadooda ilaalinaya oo muslimaday diinta wanaagsan ilaalinaya oo korkooda iyo madaxooda iyo sharaftooda ilaashanaya oo sunnadii nabiga ku darsanaya ku dayanhaya ayaan soo dhaweynhayaa. Waxaan soo dhaweynhayaa qof kastoo Soomaaliya meel kastuu joogo inuu maartay ilmihiisa ilaashado inuu dhaqankooda ilaashado oo kuwa ilaashada ayaan soo dhaweynhayaa. Anigana waxaan leeyahay meeshaas haddii alkuu rooyahay hadalkan aan hadlayo iyo wacyigan aan soo jeedinhayo anuu lacag kuma qaati. Insha Allah waxaan kaliya u hadlayaa ilaahay inuu aakhiriyo adduunba igu liibaano intii codka ugu jiri lahaa oo waxaan arkaya ka aamusi lahaa in ilaahay aakhiriyo adduunba igu liibaano. Walaalayaal aad baan idin salaamahayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.